laga rabaa in aad dib u bedeli karto hadda u bedeli karin cashirka ka gadaaleeyo oo ka dambeeyo inaad ku laabato oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu maanta cashirka noo socday oo diidmada ahay iyo ogolaashaha aan qaadanay aan dhammaystirayna ayagoo jumlada geliyay waxa jumlooyinka ay geliyay waa ogolaashaha kaligiis hadhow marka waxaa laga rabaa cashirka diidmada inaad ku laabato oo meeshaan wax walbo diidmo u bedelmaayo inaad diidmo u bedesho oo ujeedin kuwan diidmadooda laga rabaa inaad bedeli karto macnayna marka waa soo qaadanay ficiliyada waa soo qaadanay nafsiga waqtiga iyo ficilka waa soo qaadanay waxa nagu cusub meeshaan waa erayadan oo kaliya ayaa nagu cusub wewe waa soo qaadanay kan waa soo qaadanay mpira ayaa kugu cusub kan waa salaan waa soo qaadanay vyombo ayaa kugu cusub saas darteed erayadan jumlada u dhex gelin marka waxa marka qaato isku keeno bas jumlo ku noqonaya marka cashirka macnayna cashirka idin balan qaaday oo dhawaaq la sii saxayso xilligani hadda ayaa wax ka taabanayna asla soqana marka mwalimu macalinka anafunza ubara watoto caruurta mwalimu macalinka anafunza ubara watoto caruurta meeshan anafunzadan waxaa laga rabaa in aad dib u bedeli karto hadda u bedeli karin cashirka ka gadaaleeyo oo ka dambeeyo inaad ku laabato oo aad fiiriso diidmada isku bedelayso aadan sidee noqonayso naadan sidee noqonayso iyo funzada sidee isku bedelayso maamada anapika way karinaysaa chakula cunto wewe adiga unacheza wad ciyaaraysaa mpira kubad sisi anaga tunaosha waan dhaqaynaa vyombo alaabta wao ayaga wanauza way iibinayaan nguo dharka nyinyi adinka mnapanguza wad tirtiraysaan chumba qolka ninatandika waan firaashaya kitanda sariirta waxaa ka rabaa marka kuwan in aad diidmo u bedeli karto cashirka noogu xigi doono kan hadda macnayna maahan oo dhawaaqa maahan cashirka noogu xigi doono waxaan noqon doonaa wada sheekaysi gaaban oo qof walba uu fahmi karo saaidin balan qaaday dadka qaar soo codsadayna jiro cashirada bilaaw aasan ahayn oo cashiro xoogaha sareeyo in la qaato hal maalin waa qaadan doona laakiin dadka koogu horo aad dhisayna waxaa waaye dadka soo xiliga oo ku cusub yahay waxa uu imaanaynaa marka dhawaaqa Swahiliga dadka badanaa maxay u qaldaan sababta u qaldaan ay sheegaan haddii ereyga alfabeetikada Soomaaliga uusan ku jirin hadhow Soomaali dib u noqonaa xarafkan alfabeetikada Swahiliga ku jiro oo Soomaaliga ka maqan xogaha qof Soomaali inuu xarafkaas ku dhawaaqo dib ku noqonay tusaale ahaan u imaanaynaa ereyga cha ereygaas cha Swahili ma qabo ereygaane Swahili ma qabo badanaa waxa arkay Soomaali laba sina isku qaldaan ileen ayaga Soomaalidu waxa ku jira alfabeetikada ba'daas ku jirto kan waxa ku jira ja kan waxa ku jirto ba'di hoose marka qofka inta tan ku dhawaaqay tan ku dhawaaqaas waa iska saxeen hadda iska saxeena alfabeetikada Soomaaliga Swahili waa isku mid intaasan ka ahayn erayadan jadaas ba'da oo Soomaaliga ka maqan Swahiliga wax oo Soomaaliga ma qaban kuwan Swahiliga oo qaban wax Swahiliga oo qabin oo Soomaaliga qabta jirto tusaale ahaan haada qaada iyo aada saas darteed ayagana u arkay Kenyaanka mismadooga u arkay saddexdan ma karaan hadda qof Soomaali oo Swahili ku dhahdo Halima dheh hadda inaa ku dhahdo maxaa ku dhaha Halima ha ku dhaha ha soo qaadana ileen ayaga kama qabaan kan midkan way qabaan so saas darteed waxa alfabeetikada haddii luqadaada u dhalatay ee ka maqan tahay hadhow dhawaaqa dib ugu noqonay marka isla socono waxa raba marka dhawaaqitaanka jumlo erey marka dhihi rabto oo Swahili ku hadli rabto sa u dhihi doonto laba waxa jirta meeshan laba waxa waxa waaye wax la dhahayo consonanti iyo irabu waa a e i o iyo u waa in shay Soomaali camal inta kala soo hartay marka waa consonanti see marka loo kala dhawaaqtana haddii waxa consonant irabu oo wato dhawaaqa iyo qoraalka wuu fududeeyay Soomaali camal loo qora Soomaali camalne loogu dhawaaqa tusaale ahaan haddaan rabo inaan dhaho
daktari da loogu dhawaaqa meeshaas ka fiiriya dhow da hadhihin waa da alfabeetkada iyadoo qoraal leh insha allah waa idin soo bandhigi doonaa hadda badanaa dadku way yaqaaniin dhawaaqaas dul marno daktari haddaad fiiriso meeshaan erey qarsoon mise maxaa dhihi jiray meeshaan wax sir ma taalo wax la qarinayo ma yaalo waxaa sababayo iraabadu meesha taalo soomaali ahaan loogu dhawaaqa daktari aa la dhahaa laakiin tusaale ahaan haddii laba consonanti ay isku dhegan tahay meeshaan iraabu kuma jiro la socda meeshaan iraabu kuma jiro laba consonanti isku dhegan laba consonant markay isku dhegan tahay dhawaaqa saxda markaa ku dhawaaqayso meesha inuu consonanti naga galo aad diidayna hadhow waa dhihin mukono meeshaas gedis automatically waxay noqotay iraabu see marka ugu dhawaaqtame consonanti ugu horeeya ku hakane consonanti ugu horeysa ugu hakane aan leedahay iyadoosan iraabu kaa galin kaada ku qabane waxaa leedahay marka kono haddaanan kan ku hakanin iraabu meesha kaa galaayo ha ahaado ma ha ahaado mi ha ahaado mo ha ahaado mu midii ahaato hadhow meeshaas waxaa ka galaayo iraabu so laazim waxaa ku khasban tahay in ma'dan aad ku hakato aad dhahdo haddaa dhahdo oo kaada ku dhijiso dhawaaqaad waa ku saxmaa dhawaaqa dadka badanaa waxay u khaldaan waa saas qofaa la arkay dhihi rabo inuu dhaha rabo mzuri waxaa ku dhahaa mu mise ma inta consonant aga galayso ahaato mise midii ahaato wax sababay waxaa waaye midkaan ugu horeeyo qofkaas muu ku hakanin inaa dhahdo haddaa ereygaas ugu horeey aad ku hakato oo consonantii ku xiga aad ku dhijiso waxaa ku dhawaaqaysay si fiican ugu dhawaaqday marka casharkaas dhawaaqa dad badan soo codsaday saas darteed wax ugu taabtay alfabeetikada way fududahay haddii wixii u baahato oo su-aal ardayda soo codsadeen macnaha casharkan igu qasbay inaan soo hor idin dulmaro soo weydiinta ardayda soo weydiisa marka numberka meesha ku qoran yahay wixii u baahato soo weydi casharkane halaad ayuu noogu egyahay haddii aad fiiriso kan marka waxaa u malaynaa qof walba inuu fahmo haddii aad fiiriso casharkan diidmada kuma qorin meeshaan waa ogolaasho kaligeed jumlo ayagoo la wada geliyay marka meel walba ogolaashada diidmada laga rabo inaad isku bedeli karto laga rabo haddaad isku bedeli karin oo dhib aad ku qabto bilaaw kasoo bilaaw cashirada nafsiga waqtiga iyo ficilka ayagoo diidmo loo bedelayo saddex iskugu qabanay mimi wewe iyo yaya isku qabanay cashir ahaan u qaadanay sisi nyinyi iyo waawane cashir ahaan u qaadanay waa isku qabanay marka wixii aad u baahan tahay oo su-aal insha allah